dowladda Itoobiya ayaa waxay soo saartay tallaabooyin dheeraad oo lagu xakameynayo cudurka coronavirus oo qofkii 11aad uu soo ritay wadankaasi Itoobiya. dowladda wadanka Itoobiya ayaa waxay soo saartay go'aamo la xiriira arrintaasi, waxaana ay sheegtay in 14 maalmood oo karantiimo ah la gelin doono qof kasta oo rakaab oo ka soo daga garoomada diyaaradaha ee dalkeeda. laga bilaabo 23 bisha saddexaad ee 2020 oo ku beegan saqda dhexe ee caawa. dadka Itoobiya ay doonayso in la karantiimeeyo ayaa warkan ka soo baxay dowladdu waxa uu sheegayaa in jeebkooda ay ka dabari doonaan kharashka ku baxaya inta ay ku jiraan muddada karantiimada. hoteelka cusub ee Skylight ee magaalada Addis Ababa iyo hoteelo kale oo dowladdu ay cayimi doonto ayaa la sheegay dadkaasi in lagu hayn doono. diblomaasiyiinta ayaa la sheegay in lagu karantiimeyn doono safaaradahooda haddii ay dibadda socdaal kaga yimaadaan. dadka transitka ah amaba ka gudbaya ee diyaaradaha kale ka sii qaadanaya wadanka Itoobiya ayaa la sheegay in aanay khusaynin arrintani, maadaama inta diyaaradaha ay sugayaan laftooda lagu hayn doono hoteelkaasi Skylight. waxaana dowladda wadanka Itoobiya ay sheegtay tallaabooyinkaasi inay wadi doonto ilaa inta cudurkaasi khatartiisu ay hoos u dhacayso. adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab. haddaba macmil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.